Gabadhan waxay qiyaanaysaa ninkan dukaanka ka shaqeynaya, waxay soo saaraysaa warqad waxayna ku dhadhinaysaa maradan ayay ku dhadhinaysaa. Ninkan wuxuu ku mashquulsan yahay dukaanka oo wuxuu bilaabay inuu maro kale u soo saaro. wuxuuna ku leeyahay marwo marada gawaatan oo ku soo saaray. waxay ku leedahay aniga midaas ma ka helin ee midan ayaan ka helay. Ninkan ayaa soo qaaday rasiidka, wuxuu fiirinayaa rasiidka, wuxuu leeyahay maxaa qaldan, maradan waa qaali. Rasiidkan wuxuu sheegay maradan inay raqiis tahay. Maxaa qaldan ayuu leeyahay. waxay ku leedahay lacagta xagee baan ku bixinayaa. sigoo yaaban ayuu u tilmaamay meesha lacagta ay ku bixinayso. gabadha meesha ayay ka soo tagaysaa, waxay u imaanaysaa ninkan maradan aan ka helay, waxaan rabaa in aan bixiyo lacagta. ninkan marada ayuu ka qaadaya gabadha, markaas ayuu leeyahay marwo maradan waa qaali, rasiidkan ku qoran waa mid qaldan. waxaa laga yaabaa shaqaalaha inay wax isku qaldeen. waxay leedahay aniga waxaa shaqo kuma leehi, maradan aan ka helay rasiidka ku qoran kaliya lacagtaas laan dhiibo, aniga wax kale aan dhiibaya ma jirto ay leedahay, lacagta meesha qoran kaliya ayaan dhiibaya. wuxuu leeyahay marwo wax qalad ayaa jira maleynaya, laakiin ayada midaas ma yeelayso, indhaha ayay u shirinaysaa. waxay leedahay midaas idinka ayaa ini taala, lacagtaas kaliya moogmaan lacag kale ma awood in aan bixiyo. laakiin wuxuu leeyahay midan waa mid qaldan. waxay ku leedahay waqtiga ha iga dhumana, dalkan waa niiga iibsada bac iigu soo lid ayay ku leedahay. wuxuu leeyahay way waa lagugu soo lidayaa, qaalihi ayaa wacaya, shaqaalihi ayaa imaanay. gabadhan waxay leedahay ana hadalkayga waqti ayaa ugu socda, baashan waa niiga iibsaday waana bac iigu soo ridaa. markaas ayuu leeyahay marwo dhib ma laho, laakiin mid noo sameey, baashan hadda waan ku siinaynaa, laakiin guriga marka aad tagto warqadan ka fuji, dadka kale sidaas u arkan. hadhow dadka kale waxay maleynayaan baashan inay raqiis tahay, si qaldan ayayna u imaanayaan halkan. gabadha waaya ayay ku leedahay, bacda ayay ugu ridayaa, way ka tagaysaa. gabadhii ayaa in yar kadib soo laabanayso, ninkii ay ku qaylinaysaa. waxay leedahay waad i khiyaantay, marada aan kaa iibsada maana mara kale ayaad iigu riday, waa maxay khiyaanaysa ay leedahay. hadeer ayaan wacaya booliiska. ninkii oo doola caddayn ayaa dhahay, wuxuu ku leeyahay aniga dadkaad iga gadato waan ku sii waana qaadatay, hadii aad doonto waad u egtaa booliiska ayuu ku leeyahay. markay damacda inay wacda booliiska, ninkii waxa u sheegaya in cc camerada ee duubtay qaladaad walba ay gashay. wuxuuna leeyahay haddii booliiska oo halkan imaada xataa adiga ayaa lagu xariyaa. gabadhii intay naxday ayay aamusaysaa, markaas ayay damcays inay baxdo oo dalka ka tagto. ninka dukaanla dadka ayuu kasoo daba tulaya, wuxuuna ku leeyahay dib dambiyaan kugu arka dukaankayga agaarihaysa.